Sambabadu waa xubnaha muhiimka ah ee habdhiska neefsiga oo ka mas'uulka ah gaas beddelka u dhexeeya hawada aynu neefsano iyo dhiiggeena. Halkaani waxaan kugu soo koobi doonaa qaab dhismeedka sambabada. Goobta ay ku yaalaan sambabadu waxay ku yaalaan godka ama cavity-ga loo yaqaan thoracic waxayna bidix iyo midig ama labada dhinac ay ka xigaan wadnaha waxayna ku xiran yihiin gudaha qafiska feeraha. Structure-ka ama qaab dhismeedka sambabada bronch and bronchioles wax la ayaa jiro. Hawo mareenka ama trachea tubada dabaysha qaado waxay u qaybsantaa laba bronch oo waaweyn. Labadoodu waxay kala galayaan labada sambabood. Bronchiyadaanina waxay u sii kala qaybsami doonaan bronchioles oo yaryar kuwaas oo aakhirkii u horseedi doono ama noqon doonaan kiishash yaryar oo hawo oo loo yaqaano alveolar. Alveolar waa goobta koowaad ee gaaska lagu kala bedelo. Alveolar waa kiisho yaryar oo gidaar dhuuban leh oo ay ku wareegsan yihiin xidido micnaha capillaries sida sawirka kaaga muuqato. Oksijiinta hawadu waxay ku faaftaa gidaarka alveolar ilaa xididada halkaas oo ay ka gasho dhiigga. Isla mar ahaantii carbon dioxide oo ah wasakh ay soo saaraan dheefshiidka kiimikeed waxay ka soo guurtaa xididada ilaa ay ka soo gasho alveolar si loo sii daayo neef ahaan. Lobes sambab kasta wuxuu leeyahay lobes sida hore muuqaaladeena hore mid kamid ah aan ugu soo baranay sida beerkaba oo uu leeyahay lobes sambabaduna waxay leeyihiin lobes. Sambabka midig wuxuu leeyahay 3 loob sare mid dhexe iyo mid hoose halka sambabka bidixna uu leeyahay 2 loob mid sare iyo mid hoose. Lobeskanna waxay u sii kala qaybsan yihiin segments micnaha qaybo yaryar. Pleura sambabadu waxaa ku daboolan xub laba jibaaran oo loo yaqaano ama la yiraahdo pleura. Lakabka sare waxaa loo yaqaanaa parietal pleura kaas oo ku xiran gudaha daloolka laabta micnaha wuxuu ku dhagan yahay darbiyada xabadka halka lakabka gudaha loo yaqaano visceral pleura kaas oo daboolaya sambabada laftooda. Inta u dhaxaysa lakabyadani waxaa ku yaalo meel yar oo bannaan oo dareero oo khafiif ah ay galaan oo loo yaqaano pleural cavity ka oo ka caawinayo ama yareynayo isku dhaca ama xogmanka inay xogmanto xilliga neefsashada. Labada darbi inay istaabtaan ayuu diidayaa. Blood supply micnaha dhiig qoodinta sambabada. Sambabku waxay helaan dhiig ka yimaado halbowlayaasha sambabada kuwaas oo dhiigga deoxygenated-ka micnaha deoxygenated waxaa laga wadaa dhiig aanan oxygen wadanin oo wasakhdii jirka uu ka soo qaaday ayuu wadaa kaas oo ka yimaado wadnaha una sii gudbo sambabada si ay oxygen ugu soo yeelaan. Ileen neeftu waxay ka soo gashaa sambabada dan dhiigga waxay ku gaari kartaa in ay sambabada yimaadaan oxygen-ka markaas ay ka qaataan. Dhiigga oxygen-ka leh ayaa ku noqdo wadnaha isaga oo sii maraya xididada ama veins-ka sambabada ay leeyihiin. Shaqada ugu weyn ee sambabadu waxay tahay in ay fududeeyaan isdhaafsiga oksijiinta iyo carbon dioxide. Habkani waxa uu lama huraan u yahay neefsashada halkaas oo oksijiinta ay u isticmaalaan unugyada si ay tamar ugu soo saaraan iyo carbon dioxide-ka ay unugyada iskaga soo saaraan wasakh ahaan. Farsamada neefsashada ama hawo qaadashada waxaa ku lug leh ficillo isku dhafan ee muruqa diaphragm-ka iyo muruqyada intercostal-ka. Marka aan neefsanayno diaphragm-ku wuxuu sameeyaa contraction oo hoos ayuu u dhaqaaqaa halka muruqyada intercostal-ka ay ballaariyaan qafiska feeraha. Tani waxay kordhinaysaa mugga daloolka xabadka oo hoos u dhigtaa cadaadiska hawada ee sambabada waxayna keenaysaa in hawadu ay ku soo degdegto ama ay soo gasho sambabada. Halka hawo saaristu ay tahay bilcagsigeeda oo muruqa diaphragm-ka waxa uu sameeyaa relaxation halka contraction uu ka ahaa marka hore kadibna kor ayuu soo aadaa halka muruqyada intercostal-kana ay qafiska soo yareeyaan. Markii hore way ballaariyeen kadibna way soo yareynayaan sidaasna waxaa dhacayso in sambabadu ay hawada sidaas ku saaraan. Halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. Muuqaalada xiga ayaa waxaa ku baran doonaa shaqadeeda iyo qaabka hawo saarista ama hawo qaadashada oo faahfaahsan balse waxaa inoo balana muuqaalka xiga hadduu alla idmo. Khayr badan.